barnaamijka weydiinta waxaa noogu martay madaxweynaha xilku ka sii dhamaanayo ee Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe madaxweyne ku soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم وبين سعنا على ورد ودين صلى الله على سيدنا محمد رسول الله جميعا واد معصنته aad baan ugu faraxsanahay su'aasha ugu horeysa aan ku weydiinay waxa ay tahay dad badan ayaa ka cabanaya oo nidaamka ka cabanaya oo caqabado badan uu ku haya waxa ay leeyihiin odaga Axmed ah waxa ku dhajiyay nidaamka Jubbaland oo uga fuqilaya tan iyo maalintii uu la wareegay ama ku habsaday ana kaalidu shacab ana sidan soo yeelay ana kaalidu shacab ana sidan soo yeelay ana kana waayahay madaxweyne waxa tiri waxaan u soo cabay kaayadeyda iyo saxaradeyda waxa dad badan ay ka cabanayaan sidoo kale in aad dhirtii marisay in aad dadkii laysay in aad waxba reebin haddii aad mar kale soo laabato oo hadda aad sharaxan tahay muxuu yahay go'aankaaga ugu horeeya ee aad qaadayso dadka maxaad ka yeelaysaa inta dhiman waa inuu qof waliba soo maanta qof waliba soo diyaaraysa imanaya qof waliba isaga miiska saaran qof waxaan rajeynayaa weerarkan hadda socdo iyo hawlgalkan hadda la bilaabayo in arrintaas haddii ilaahay dhaan kusoo afjari doono dad badan waxay isweydiinayaan haddiiba aad ku guulaysan weydo kulanka maanta ah iyo doorkanba maxay tahay talaabada aad qaadayso miyaad dagaalamaysaa oo duurkaad gelaysaa miyaad la yaaban tahay su-aashana ma aad ma garanin waa dhowr goor meelo badan oo madaxweyne xaaladdu waa isbedeshay 2010 2015 midna lama joogo waqtigu waa xilli dambe dawladda ayaa waddanka ka dhalatay maamuladu kuma taageersana caalamku waa ka soo horjeeda halkay ku shaqaynaysaa dawladdu haddii aad duurka gasho ma jirta sabab loo oranayo meel baa la haystaa xagee la tegi xagee qol hoosteeda tagay meel xageen anagoo bannaan soo socnaa waxaan la dhisay la wado shaqada ay socotay marka taas xujo badan ma aha maxay tahay sababta duurka ku gelinaysa ee doorasho xalaal aad u qaban weyday ee ummadan reer Jubbaland ee u baahan doorasho sax ah oo xaq iyo xalaal ah aad ugu horseedi weyday maxay tahay sababtu maxaad aqbali weyday waxaan aqbali karaynin waxaan inta ku soo daawanay anagu waqtigeeda dad oo labadna wiil ama dibadda ka yimid oo le anagu baasaboor baa wata ilmaha dibadda ku nool insurance waxa caafimaadkooda ku jira kan sida aan rabo saas hebel hadaan anigu mas'uuliyadda qabanaynin oo mas'uuliyadda aan qabanaynin anigu maxay iga baabacaya maxay iga halaabaya balse madaxweyne ma xasuusan tahay inuu dalku leeyahay madaxweyne soo laqay oo kadabkood gooyay raggii saxaabtaada ahaa ee garabkaaga taagnaa ee barbarkaaga taagnaa ee sakiin lahaa ee gaas lahaa ee xaaf lahaa roobow lahaa waa farmaajo maxaa farmaajo ka leedahay farmaajo waxna ma qaban karo waxna ma suurtagelin karo farmaajo waxna ma qaban karo waxna ma suurtagelin karo madaxweyne adiga iyo kooxaha argagixisada ee shabaab ugu tunka weyn yihiin waxa idinka dhaxeeya ayaa leeyahay xiriirkaas waa noocma meeshiis baa idinka dhaxeeya aad baa ma ahsantahay su'aashaas waa su'aalaha kale kaga jecel shabaab inay noolaadaan waa wax heshiis lagu yahay shabaab inay noolaadaan waa wax heshiis lagu yahay dhinaca kale madaxweyne waxa lagu aadeynayaa arrinta dhuxusha oo la leeyahay ninkii dhirtii dhamac lahayd ayuu mariyay oo baabi'iyay oo buriyay arrinta iyada ah maxaad ka leedahay waxaan u malaynayaa Kismaayo maanta haddaad tagtaan idinka waxaad arkaysaan iyada oo buuxda oo meel walba rasaysan